Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada mar kale iyo xalqadii aynu ugu talagalnay inaynu ku bilowno xanuunada kumanka ee wadankeena dhibaateeyey ama halakeeyey. Waxaanu soo xullay ama isla garanay in aanu ku bilowno xanuun runtii ah xanuun adduunka oo dhan halakeeyey, inagana welibana aad iyo aad inoo halakeeyey. xanuunkaasi waxa weeyaan xanuun dilaa ah oo dilaa 1,400,000 ilaa 1,500,000 inta u dhaxaysa. xalaqadan ayaynu ku ogaan doonaa xanuunkaasi waxa keena, calaamadaha lagu garto, siyaabaha loo daweeyo, iyo si looga hortegi karo. xanuunku waa xanuun aynu u naqaano qaaxada ama TB loo yaqaano luqadda qalaad. xanuunka TB-da ama qaaxadu maxaa keena? waxa keena waa bacteria, Mycobacterium tuberculosis la yidhaah, iyo mid kale oo iyadna Mycobacterium bovis la yidhaah. labaduba waynu ka sheekayn doonaa sida ay ku gudbaan iyo siday yihiin, waana la isla xidhiidhiyaa labadaba. waxa lagu qaadaa ta hore waxa weeyaan Mycobacterium tuberculosiska in ay ka timaado qof xanuunsanaya oo kuu qufaca masalan, ama xaaka uu meel ku tufay oo engegtay dabadeedna dabayshu ay kugu soo qaado, ama adiga oo taabtaba wax dheecaanadiisa kasoo baxay sanbabka ama candhuuf ha noqoto ama wax lamid gacantaadu gaadho dabadeedna aad sanka iyo afka adigu aad gaadhsiiso. waxaa kale oo dhici karaa in dheecaanada laga soo qaado meelaha aan ahaynba sanbabka laakiin bakteeriyadu ay joogto, in iyadana mararka qaar haddii ay kusoo gaadhaan inaad qaadi karto. tan kale buufiska ama Mycobacterium boviska la yidhaah, ama mbovis la yidhaah, waxay iyadu caan la tahay ama ay ku gaar tahay deegaanka ay ku badan yihiin lo-du, oo inaga runtii markaad u fiirsato iska deegaanka lo-du ay inta badan ku badantay uu badan yahay marka dhulka Soomaalida loo eego. guud ahaanna haddii aynu u eegno caalamka kale, marka masalan imtixaanada kale la gelaya ee caafimaadka sida Maraykanka USMLE oo kale, ama kan UK oo kale PLABka oo kale, ama la gelayo kan boardka oo kale, waxaa ku arkaysaa imtixaanadooda iyaga oo qof ka yimi Soomaaliya oo kale kusoo dhex daraya. inta badan qofkaasi waxaad arkaysaa waa TB keiskiisaasi. marka waxaad dareemaysaa inay TB-da ama qaaxada ay tahay waxyaalo wadankeena xanuunada halakeeyey ee ku faafay adduunka kalena uu iska ilaalinayo, oo sidaa awgeed inagu inaynu saynu u yarayn lahayn ama u dabarjar lahayn hawsheeda galno. okay, marka aad u timaado maxaa sidaan ku garanaya haddaba anigu sidaan ku garanaya in aanu qabo iyo qofka agagaarkayga jooga inuu qabo, ama sidaan ku dareemaya, waayo xanuuno u egeeg baa jira. sababta ugu muhiimsan ee xataa aanu usoo qaadanay xilligan waxaa ka mid ah maadaama oo qufucba u noqday wax laga shakiyo hadda, oo markaa dee dhowr jeer qufaacda dadkii ku dhadhawaaba ay solanayaan malaha wuxuu qabaa COVID-19kii, gaar ahaan markaad meelahan reer galbeedka joogto. waxaa jira haddaba nidaamka qofkaad ku garanaysa waxa weeyaan qufac joogtaa, in uu qofkaasi mar walba uu joogteeyo xaaka tufis. xaakadaas oo welibana mid yellow ama greena ah, oon ahayn candhuufteenin caadiga ta adage la tufo. waxaa intaa dheer qofkaasi waxaad ka dareemaysaa ama isaguba dareemayaa in uu awood darra ku dhacday muddadii xanuunkaasi hayay,
awood darradaasi ama ha noqoto mid jireed oo jirkiisa oo gurmaya ama mid kale oo awood darro kale oo jirkiisii aanu qaadi karaynin ama aanu socon karaynin ama aanu wax qaban karaynin. Okay, waa calaamadaha generalka aynu qofka ku arkayno inuu weight la sameeyey, in uu tired yahay mar walba, uu daalan yahay, inuu appetite-kiisii iyo cuntadiisii ay yaraatay, in heer mararka qaar haddaan la daweynin inuu gaari doono dhul jiif u noqdo. waayo dee waa dilaa weeyaan oo kama dambaysta qofka way de ilaahay baa ajaasha gooye, laakiin heer bay gaadhsiinaysaa oo qofkaasi sabab noqoto. Okay, haddaba qofkii marka lagu arko calaamadaha ama uu isku arko, waxaa jira hosbitaalada inta badan adduunka TB-du waa bilaash baa lagu baaraa, bilaash baana dawada lagu siiyaa. waddankeena way jiraan meelo fara badan oo lagu daweeyaa inuu tago uu meesha dhakhaatiir dee takhasuskeedii leh oo cilmigeedii leh jooga. waxyaalaha inta badan dhakhaatiirtu ay awoodda saaraan ama broseska ay mariyaan waxaa ugu muhiimsan qofka in x-ray laga qaado, ama raajo waxaa loo yaqaano, raajada laabta weliba sanbabkiisii waxaa la eego, in tuberculin test waxa la yidhaahdo lagu sameeyo, irbad yar lagaga mudo gacanta ama skiinka meel ka mida, la yidhaahdo muddo nagu soo noqo 48 saacadood gudahooda, ama in uu ama qofkaasi in mararka qaar hadduu yahay qof aada u qufacayo oo kale dee laga qaado xaakadii. marka broseskaas la mariyaa, in x-ray la mariyo, xaakadii laga qaado, tuberculin testna loo sameeyo. haddii mid kamid ah uu positive noqdo, ka kale lagu xoojiyo, qofkaana dawadii sidaa lagu siiyo. xanuunkani waa xanuunka dilaaga ah ee dilaya 1 milyan iyo maxaynu nidhi iyo 500,000 oo qof sanadkii. xanuunkaasi runtii waa xanuun aynu u baahannahay inaynu ka warqabno. waxyaalahan kaga hortegi karna waxaa ka mid a qofkii xanuunka qaba ee la arko amaba dee lagu soo caddeeyo horta inuu dawada si fiican u qaato oo dawadiisa aanu kala goynin. waayo maalinta uu bilaabo dawada 7 toddobaad kadib qofkaasi ma gudbinayo xanuunkii. haddii uu joogteeyo, hadduu joogteyn waayo oo uu jaro, waxa la yidhaahdo resistance baa kasoo baxaya oo dawadii kolle uu qaadanayo, kolle uu iska joojinayo, waxba laga yaabaa hadhow inuu ku dawoobin oo ay dawadii waxba u tari weydo, bulshadiina uu aafeeyo. markaa horta qofka xanuunka ku dhaco ama ciddii ka garab dhowba inay qofka kula taliyaan inuu dawada dhamaysto, waa ta koobaad. ta labaad iyadana aynu qofka kula talinayno waxaa ka mid ah bulshadu meelaha masalan TB-ga oo kale hosbitaalkiisa markay tagaan, in ay hadday sanka xidhan karaan oo kale sanka xidhaan, in dee meelaha loogu talagalay inay beeshanada xanuunsanaya xanuunka qaba ay joogaan, dadka aan qabin ee familiga la socdaa ay ka dhowrsadaan inay ka garab dhowaadaan, in meelaha xanuunka lagu sheego oo dhanna ay iskaga fogaadaan inta ay karayaan. ilaahay baa wax ilaaliya. taasi waxa weeyaan waa qaabka la iskaga looga hortegi karo. qofka masalan xanuunkii lagu soo caddeeyana toddobaadka ugu horeeya intuu dawada qaadanayo in uu isolation isku sameeyo, ama uu istakooro isagu, ama dee loo sameeyo weel gaara masalan wax ku cuno, qol gaara oo uu seexdo. toddobaadka markuu dhammaystana dee uu dadka caadiga iyo nolosha caadigeed kusoo noqdo. waxaan rajeynayaa inay intaasi xanuunka ay nagaga filan tahay, mar hadday ay tahay uun nidaam wacyigelineed iyo muxuu ahaa oo ina ahayn dee dad arday ah ama aan cilmiga loo sii gelaynin si dhiba. waa mahadsantiin dhammaantiin. waxaan rajeynayaa video ku xiga inagoo nabad qabna oo caafimaad qabna inaan isu aragno. idinkana aad iyo aad baa umahadsantiin dhiirigelintiina, mar walbana dhiirigeliya, gaarsiiya inta aad karaysaan videoga qof walba, waxa weeyaan si looga wada faa'iidaysto ummadana wacyigeeda kor ugu kaco. way mahadsantiin dhammaantiin. khayr iyo wanaag ayaynu isku ognahay. sidaa iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullah.